سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقاد يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقاد دمع عيني جرى واستطاع. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. أيها الإخوة في الله، الله تبارك وتعالى حكمتي سحيشة دير درتد خلقيسا اسكوميد كما دغين ديرات بو كلا سيي ونا كلا فضلي ربي وحو كلا فضلي ملائكته ووحو كلا فضلي بني آدمك ووحو كلا فضلي بني آدمك كيسا سي فضل بدن الرسوشي النبي يده ووحو كلا فضلي دلك وحو كلا فضلي الزمنك إيا وقتك. الله تبارك وتعالى خلق جيسا مسمن سقى فضلك قيبيه وقار سيادة السي زمنك إلى هاي فضلي أو سيادة السي وحا كمدا ما ننت جمعة وما ننت أقو فضلك بدن مالمها أسبوع أما التضباتك نبي قلنا وحا كسوغا صلى الله عليه وسلم إنو يري مالين أي قرحي الصوب بحضو وحا أقو فضل بدن مالين تجمع مالين كاوا مالين كي آدم لا أبوري سأل سعطان قرآن كنت المامي سماواتك يا رلالك يا إنت أود حيث ربك وحوكو أبوري لحبري لحدا بري تجمع أقو دميس آدم تجمع لا أبوري wuxuu ilaahay abuuray wixii ugu dambeeyay buu kamid yahay isla jumcada dhaxdeeda maalin jumca aba jannada la galiyay isla jumcada lafteeda jannada laga soo saaray oo markuu khalad ka galay isagii xaaskiisii Xawaa oo geedkii cuneen jannada marka laga soo saarayna maalin jumca aba yahay oo dhulka loo soo dejinayo إسلامالي جمعة أبا إلهي كتوبة أقبلي ومركو خلط كقالوا إلهي الله بتوبة ديسي مالين جمعة أبا مالين جمعة أبو جيريودي نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مالين جمعة أبا قيامة دعي دونتا وأدون كان يوحن اسكوها جاكسن لجبين دونا سأصدرات إذا نبينا وحكسوا صلوات ربي والسلام عليه سماواتك iyo dhulka iyo makhluuqaadka iyo waxa dhulka korkiisa ku socdaay maalinta jumcadu markay soo gasho way baqaan markii jinka iyo insiga laga reebo waxay ka baqayaan in ay tahay maalintii saacada iyo qiyaamadu dhici lahayd aadamuhu laakiin waaba moog yahayba oo badankii maba ogaba isaga iyo jinkuba خصائص فرا بدن باي مالين كان ليه خصائصتيسا waxa kamida nabigu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi wuxuu yiri waxa ku jirta waqti yar oo adoonkii muslim ah oo ilaahay wax weydiista khayr ah ilaahay uu ka aqbalay saacatu al-ijaba
saacad rabbi tabaaraka wa tacaala waxaad weydiisatoon xaaraan ahayn aan macsiyo iyo dambi ahayn khayr ama mubaaxaadka ah allah hadaad weydiisato uu ka aqbalay xadiidka abu hurayra ayaa nabigu wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalinka jumcada waxaa ku jira waqti ama saacad uusan waafaqaynin muslim taagan oo tukanaya allana khayr weydiisanaya ilaa ilaahay waa siinaya wuxuu yidhi waana waqti khafiif ah oo yar waqti dheer ma aha waa waqti yar saacadaasina waa ku jirtaa maalinta jumcada waxay axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam laga wariyay ku kala bedelan tahay meesha ay kaga jirto saacadaasi maalinta jumcada xadiis baa jira muslim soo saaray oo tilmaamaya in ay ku jirto marka imaamku uu minbarka ku istaago laga bilaabo ilaa salaada la tukado oo laga baxo waqtigaasay ku jirtaa xadiis baa tilmaamaya xadiidkaas sixadiisa culimada qaar baa ka hadlayo waa la haystaa axaadiis isaga ka badan baa waxay tilmaamaysaa oo sheegaysaa in ay tahay casarka kadib khaasatan maalinta jumcada saacada ugu dambaysiya waqtiga ugu dambeeya ee qorrax dhaca ku dhow waxa tilmaamaya xadiidka abu hurayra markuu xadiidka sheegay oo saacadaasi in la iska aqbalayo cidii ilaahay wax weydiisata uu tilmaamay ayaa wuxuu yidhi waxaan la kulmay saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi ibnu salaam markaasaan u sheegay buuhi xadiidkii waxaan u sheegay nebigu inuu sheegay saacad jumcada ka mida oo ruuxii taagan oo tukanayo muslim ah allana wax weydiista laga aqbalayo markaasuu cabdullaahi ibnu salaam wuxuu yidhi aniga waxaan garanayaa saacadaasi meesha ay kaga jirto maalinta jumcada waa teebuu yidhi wuxuu yidhi waa saacadda ugu dambaysta maalinta jumcada abu hurayre ishkaal baa ku dhasho wuxuu yidhi seebay ku noqon kartaa saacaddaas adigu laba isukay waafaji xadiidka nebigu uu ku sheegay wuxuu sheegay inuu tukanayo ruuxu axaadiis kaloo nebiga ka suganna waxay diidan tahay saacadda qorraxdu sii dhacayso ama ay isbedesho in la tukadaba nebigu waa diido waa nahiyey xadiidkanina wuxuu leeyahay ruux taagan oo tukanaya ee say isu waafaqaysaa cabdullaahi ibnu salaam waa bushi bixiyey oo wuxuu ku yidhi soo nebigu ma dhihin sallallahu alayhi wasallam ruuxii fadhiista meel asagoo salaada sugaya salaad buu ku jiraa soo nebigu ma dhihin haa buu yidhi dee waa taas laazim maaha inuu salaad u taagan yahay ee hadduu intuu meesha fadhiisto salaadii maqribka sugayo salaad buu ku jiraa abu hurayra warkaasi meel la kama marine inuu ogolaaday bay ka muuqataa oo ninka la yidhahdo cabdullaahi ibnu salaam warkiisa inuu aqbalay isla waqtiga waxa kale ku soo aroortay xadiidka Anas Tirmidhi baa soo saaray iyo qeyrkii waana xadiid xasan isla waqtiga waxa kale ku soo arooray xadiidka Jaabir ibn Abdullah Abu Daawud iyo qeyrkii baa soo saaray waa xadiid saxiix ahadiistu waxay u badan tahay sida Imam Ahmad uu leeyahay Ali rahmatullah waxay u badan tahay inay tahay saacada ugu dambaysa maalinta jumcada saacadaasina waa ku jirtaa oo cidii ka faa'iideysanaysa jaanis weyn waay laakiin waa saacad dadka intooda badan ay mashquulsan yihiin khayraadka waaweyna inta badan waxayba ku hagaagaanba xilli ibni aadamku mashquulsan yahay xilligaas cidda intay soo fadhiisato masaajid timaado salaad sugaysa oo ilaahay baryaysaay ma badna jaaniskaasi dad badan waaba moog yihiinba waxa ilaahay aad ka rabto tabaaraka wa tacaala xilliyada iriduhu furan yihiin baa lala raadsadaa maalmaha jumcada waxyaalaha ay goonida la tahay waxa kamid ah in la badiyo nabiga salligiisa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi markuu maalinka fadligiisa tilmaamay iyo khasaa'istiisa ayaa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam maalinka jumcada dhexdiisa salliga aad igu sallinaysaan badiya maxaa yeelay salligiina aad igu salliyaysaani waa la ii soo bandhigayaa ana la ii keenayaa markaas waxay yidheen rasuul ilaahayow see lagugu soo bandhigayaa adigoo baaliyoobay
oo lafahaagiyo jirkaagiyo carradu cuntay see lagugu soo bandhigaya markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam alle wuxuu dhulka u diiday oo ka xarrimay inay nebiyada iyo ambiyada iyo rususha inay jirkooda cuno dhulka taa ilaahay waa u diiday tabaaraka wa tacaala marka ambiyada iyo rususha iyo jirkoodii sidii buu baaqi ugu yahay meesha salaadiinana waa la ii soo bandhigaya nabigana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi axaadiis kale waxaa kaga sugan hal mar markaad nebiga ku sallido sala allahu calayhi waaalihi wasalam in rabbi kugu sallinayo 10 goor iyo ka badan marka acmaasha waaweyne in la badsado loo baahan yahay ka mid maalinkan jumcada waxyaalaha uu khaaska leeyahay rabbi noo jideeyo waxa kamida salaada jumcada oo rabbigan tabaaraka wa tacaala aayada quraanka uu inagu amray marka loo aadaamo salaad maalinta jumcada la aadaamo salaada loo aadaamo طبعا واذانka dambe hadii masaajida qaar kood laba aadaan laga sameeyo aadaankii Uthman ee hore hadii laga sameeyo aadaanka hore lagama wada waa aadaanka dambe ee imaamku minbarka saaran yahay idan nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah aadaankaasi haduu dhaco fas'au ila dhikrillah udagdaga ilaahay dhikrigiisa xaqiisa aada oo masaajidka aada oo khudbada aada oo salaada aada beecana ka taga ganacsiga joojiya dukaamada xidha wadarul bay' saas daradeed baa culimadu waxay isku waafaqeen xilligaasi aadaan ku dhacay ilaa inta salaada laga baxayo wixii beeca ee wax kala iibsiya ee dhacay inuu xaraam yahay kadibna waxay isku khilaafeen beecu xaraam baha ahaadee ma asaxaya mise ma asaxayo waraajix inuu san asaxayna ruuxa galayna inuu dambiile yahay khaasatan haduu yahay dadkii khudbadu ku waajibtay iyo jumcada inuu yimaado wadarul bay'a beeca daayo joojiyo ka soo taga dukaamada soo xidho khudbada imaada الله وحده تبارك وتعالى ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون هداد وحقرانيسان ساسا إذن خير بدن وإذن في عن صلاة مركا الله دميوت جمعة تكتان مركا كذب فانتشروا في الأرض دلك كباها أو دلك كوكلا فدا أو فضلك إلهي الراتسدة أو كي قنعسنا يها قنعسدو كي بير فلنا يها فشو كي ورشتك حمالة يها كحماشو إلهي رزقي سي فضلك الراتسدة صلاة كذب إلهينا مركز كذب حالها مركز كسو قنتين آد أحصصي آد اللي دانتام كذبنا ربنا تبارك وتعالى قصة النبي كل عضي بآية كسو دقيقة إسلا كسابسا جمعة يخطبة يضباب ميشا كيمت ووحي أهيد كما في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إساقو خطبة أتاقن أو صحابة أخطبين أيا وحا صوغا شي سفر قناعسي أو بضيعو يحنبارسا أو مقنيت با مقالة صوغش ترباني يحبال السوق قراعي جيرا شنقرني بالا مقلي هل مربا مساجدي لغا ياعي nabiga waxa ku soo haray sallallahu alayhi wasallam 12 nin baa ku soo haray wixii kale waa laga kala tagay rabbi tabaaraka wa taala dacdadaasu marka aayadan ku tacliiqino waxa la leeyahay markay ganacsi iyo lahwi iyo maqlaan way ka didayaan way yaacayaan waxaad ku dhahdaan waxaad u yaacdeen ilaahay agtiisa waxa yaala ka fiican risiqa rabbi baana waasi'a haka tagina way khudbada iyo khayrka adduunyaha uga cararina هذا الكاس ربي تبارك وتعالى آيات مركا كو ختمه معناه هذا waxa weeye maalinkan rabbi waxyaalaha uu inasiiyay inuu ugu deeqay waxa kamida salaadaasi jumcada la tukanayo iyo khudbada ka horeysiyo dhikriga iyo khayrka faraha badan oo wanaag aad u far badan oo la koobi karin uu ku jiro nabigeena waxa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri dad way iska daynayaan jumcooyinka ay ka tagayaan way daynayaan haday dayn waayaana الله تبارك وتعالى قلوب تودا أيو حريا أو خير كحريا كدبنا وحي نقول دونان كوا موق ومحبب لسه عنبا خيرات كرنبا لقى قفوليا حمانتا يا شرقي يا شياطين تنا والله فريا أدونك وهذا يصير كل بعدنا ملحم ومركا وجهيست وهذا الشري شكل ماي وحكى النبي جينا كسوة صلى الله عليه وسلم إنه يرسدح جمع روحي كتجا يسقون عذر دار لهين waxaa lagu qoraa liiska munaafiqiinta
liiska munaafiqiinta 3 jumco oo aadan cudurdaar lahayn haddaad ka tagtood kas uga tagto oo yaa cudurdaar leh sharcadu waxay cudurdaar siisay ruux musaafir ah oo socota ama mariid xanuunsanayo soo kici waayay ama haweenay iyada jumco laguma leh ama ilmo yaroon qalin kuba fuulin ama adoon la leeyahay sayidkiisu leeyahay oo mamluuk ah dadkaasaan jumcada lagu lahayn ama adoon inta midna ahayn cudurdaarna aan lahayn inaad jumcada ka tagtay waa halis ilaahay hadiyada iyo hibada uu bixiyay inaad fududaysato oo wax kale kaga mashquushay maya ahkaam badan bay markaa leedahay jumcadu aadaab badanna way leedahay dad badan oo soo dadaalo soo tukada marar far badan iyagoo khudbadii dhageystay oo salaadii tukaday baa haddana wax badan si ka yihiin oo dhici karta waxay sameeyeen ba inayna waxba ka helin oo dhici karta jumcadoodii inay duhur isu badasho limaada laana garashalaan iyo mukhalafaad iyo khaladaad uu galayo masaajidka dhexdiisa ayaa jira insha Allah ta'ala jumcooyinka inoo soo socda ayaa wixii ilaahay naga waafajiyay kaga hadli doonaa maxaa loo baahan yahay salaada jumcada aadaabta iyo ahkaamta iyo waxa laga helo iyo sida looga helo biidilaahi tabaaraka wa ta'ala sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'anil sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahumma inna nas'aluka al khayra kullahu 'ajilahu wa ajilahu ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحلو الرقاد يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحلو الرقاد دمع عيني جرى واستطال السواد يا إله الورى ألطفا بالعباد يا إله الورى ألطفا بالعباد سوف